Saaxiibada qaar waa saaxiibo aan u baahanahay in aan ka digtoonaano, in aan ka fiirsano ka hor inta aanan la saaxiibin. Oo saaxiibada qaar ayaa waxay noqon karaan saaxiibo markaasi kuu horseeda ama markaasi dhanka burburka noloshaada qayb ka qaata. Saaxiibadan waa dadka noogu dhow bulshada marka laga hadlayo, dadka aadka noogu dhow. Waxaana la dhahaa saaxiibkaaga wuxuu yahay ayaa adigana tahay. Sidoo kale waxaa jirta oraah dhahaysa saaxiibkaaga i tusi qofka aad tahay aan kuu sheegay. Assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan mar kale. Waxaa kuu rajeynaya inay maalin qurux badan kuu tahay. Waxaad mar kale kusoo dhawaataa barteeda YouTube-ka. Muddooyinkan waan kala maqnaynay oo muddo aad u fog ayaa iigu dambeysay in bartan YouTube-kan ka soo muuqdo. Mashquul adduunkan kama dhammaado, howlana kama dhammaadaan. Balse alxamdulillaah anigoo caafimaad qaba ayaa mar kale waxaan ka soo muuqday barteeda YouTube-ka. Waxaana rajeynayaa in aad daawanaysid adigoo caafimaad qaba. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago wax aad u yar oo aan isdhihi karo qofka dhalinyarada ah in uu ku baraarugo amaba inaad la wadaagtid wuu u baahan yahay. Waxyaabahan aan kula wadaagi doono ama qodobadan aan kula wadaagi doono waa qodobo aan isdhihi karo haddii aad samaysid oo aadba qodobadan aan sheegi doono ama halkan aan ku qeexi doono haddii aad samaysid ay noloshaada ay burburinayaan. Dhalinyaraan nahay, waxyaabaha nafteena khatarta ku ah, waxyaabaha burburi kara noloshayna iyo waxyaabaha dhisi kara waa inaan kala garannaa. Si markaa aad u garatid waxyaabaha naftaada burburi kara ayaan jeclaystay in aan muuqaalkan kula wadaago dhowr qodob oo aan isdhihi karo qofka dhalinyarada ah noloshiisa way burburi karaan. Marka haddii aad danaynaysid soo dhawow, koobkaaga shaaha soo qaado oo qodobadan bal ila daawo. Qodobka koowaad, waxyaabaha qofka dhalinyarada noloshiisa burburi kara, cilmi baarisyo badan iyo qoraallo ama maqaallo badan laga qoray. Oo waxa ugu horeeya ama qodob koowaad ugu horeeya waa maandooriyaha. Waxyaabaha maandooriyaha loo yaqaano. Maandooriyaha wuxuu marka dhaawacayaa qofka noloshiisa ayuu dhaawacayaa. Weliba wuxuu dhaawacayaa maskaxdiisa, caafimaadkiisa iyo dhaqaalihiisa ayuu dhaawacayaa. Sidoo kale maandooriyaha wuxuu khatar ku yahay jiritaankaaga qofeed ayuu khatar ku yahay. Oo haddii aad isticmaashid balwadaha kala duwan, waxaa isku raacsanahay in markaa aad ku dhibaataysantaa ama markaa noloshaada ay sidaa ay ku burburto. Qodobka labaad oo ka mid ah qodobada qofka noloshiisa burburi kara weliba markuu dhalinyaro yahay waa in uu la saaxiibo saaxiibada xunxun in uu la saaxiibo. Saaxiibada qaar waa saaxiibo aan u baahanahay in aan ka digtoonaano, in aan ka fiirsano ka hor inta aanan la saaxiibin. Oo saaxiibada qaar ayaa waxay noqon karaan saaxiibo markaasi kuu horseeda ama markaasi dhanka burburka noloshaada qayb ka qaata. Saaxiibadan waa dadka noogu dhow bulshada marka laga hadlayo, dadka aadka noogu dhow. Waxaana la dhahaa saaxiibkaaga wuxuu yahay ayaa adigana tahay. Sidoo kale waxaa jirta oraah dhahaysa saaxiibkaaga i tusi qofka aad tahay aan kuu sheegay. Marka saaxiibada xunxun waxay qayb ka yihiin burburinta noloshayna ayay qayb ka yihiin. Marka waxaad ku dadaashaa in aad samaysid saaxiibo aad u wanaagsan, saaxiibo ku dhiirigelinaya, saaxiibo ku saacidaya, saaxiibo ku taageeraya iyo weliba saaxiibo dhanka wanaagga kuu soo jiidaya. Qodobka saddexaad ee ka midka ah qodobada qofka noloshiisa burburi kara waa aqoon la'aan iyo waxbarasho la'aan markaa qofka in ay ku dhacdo. Oo qofka maanta haddii uusan aqoon lahayn
haddii uusan waxbarasho nidaamiya uusan baranin iyo haddii uusan lahaynba xirfado, in qofkaasi noloshiisa ay tahayba nolol iska burburta oo markaa qof iska nolol aan qurux badnayn isaga nool inuu noqdo. Waxyaabahaasna waxay qayb ka yihiin, ama waxbarasho la'aantu waxay qayb ka tahay burburka qofka noloshiisa. Marka haddii aad rabtid in noloshaada aysan burburin, waa inaad aqoon leedahay, waa inaad xirfad aad leedahay. Qodobka kale ee ka midka ah waxyaabaha qofka noloshiisa burburiya waa waxa la yiraahdo waqti lumiska badan. Maanta waxaan isku wada raacsanahay in dhalinyaro badan ay ku dhibaataysan yihiin siday ku maareyn lahayn waqtiyadooda ama waqtigooda siday ku maareyn lahayn. Sidoo kale waxaan isku raacsanahay in maanta dhalinyaro badan ay waqtigooda ku dhumiyaan waxyaabaha maalayacniga, sida in ay waqti badan ku qaataan baraha bulshada iyo waxyaabo kale oo markaa waqtigooda dhuminaya. Marka qofka haddii waqtigiisa uu lumiyo, waxay qayb ka tahay burburinta naftiisa ayay qayb ka tahay. Marka si waqtigaaga aad uga faa'iidaystid si noloshaada aysan u burburinin, waa inaad marka ku baraarugsan tahay in aadan dhuminin ama aad dayicin waqtigaada si markaasi noloshaada aysan u burburin. Qodobka kale ee ka midka ah waxyaabaha qofka naftiisa ama noloshiisaba burburin kara waa waxyaabaha la yiraahdo diinta iyo akhlaaq la'aanta. In qofka uusan aqoon u lahayn diintiisa, in qofka uu waxba ka baranin diintiisa, oo markaa haddii qofka uusan diin lahayn, wuxuu u nugul yahay in wax kasta ama fikir kasta oo qaldan in markaa laga dhaadhiciyo. Si lamid ah sidoo kale qofka haddii uusan akhlaaq lahayn, waxay noqonaysaa markaa in qofkaasi noloshiisa ay burburto, oo qofka waxa haga oo qurxiya qofnimadiisana ka bixiya sawir qurux badan waa akhlaaqda wanaagsan. Marka qodobada iyo qodobo kale ayaa waxay qayb ka noqon karaan in qofka naftiisa ay burburiyaan. Marka waxaan jeclaysta marka in 50 ilaa 60 qodob aan muuqaalkan kugula wadaago oo aadna ku baraarugtid in ay yihiin qodobo markaasi naftaada burburi kara. Waa inoo muuqaalka xiga, waxaan kaaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Haddii aad nagu cusub tahayne, waxaa inoo farxad in aad nagu soo biirtid. Haddii aad horay noola jirtayna, waxaan kaa codsanaynaa in aad qayb ka noqotid dadka markaa sii sheer gareeya muuqaalada ee la wadaaga saaxiibadooda. Waxaan kaaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum.